بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قضية المرأة أما قبضة iyo siduu walaalkay u dhiga uu ku tilmaamay duulaanka lagu soo qaaday caalamka waa mawduuc in badan la wadwado, in badanna laga hadlo. kayfiyada loo cilaajinayo ama loo daweynayana waa lagu kala gadisan yahay. gabadhu gaar ahaan marka la yidhaahdo mawduucay ku sheegaan taxriir ilmar'a aw tacliim ilmar'a iyo wixii ku saabsiisan oo aad moodo inay tahay fikrad ka soo gudubtay dhanka gaalada. waayo dadka muslimiinta ah xuquuqda ragguna ma dejiyo, dumarkuna ma dejiyo. maadaama nina xaq haynin, gabadhana xaq haynin, ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa ay ku jirto, sharciga iyo qaanuunka isagu uu hayo, kama jirto caalamulislaami wax la yidhaahdo xuquuq dumar baanu doodaya ama xuquuq caynkanaanu doodaya. asal ka wada weyn bay dadka muslimiintu u doodaan oo ah ilaahay xaqiisii. nebigu wuxuu ku lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi, mucaad ya mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad, ayuu ka bilaabay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. qofka xaqaasi gartaana xuquuqda ka hoosayso dhan uu garanaya. marka qofka garta xaqa addoomuha uu alle ku leeyahay subxaana wa tacaala oo ah inay keligii caabudaan, keligiina ka dambeeyaan, isagana ka amar qaataan. idan markaynu shareeco islaamiya dabaqno oo ilaahay kitaabkiisa qaadanno, kama jiro wax la yidhaahdo xuquuq rag, xaq dumar, xaq caruureed, xaq caynkan. ee qof waliba xaquu leeyahay ilaahay baa u qoondeeyoo siiyey. cidina cid xaqeeda ma qaadi karto amase ma duudsii karto. haddii markaa la rabo in la saxo, maalan dulmi wuu dhici karaa. haddii cid uun dulmi ku dhaco, ciduu doonaba ha noqdee, ama ragga ha la dulmiyo, ama dumar ha la dulmiyo, ama carruur ha la dulmiyo, ama cid kale ha la dulmiya, saxeedu maaha in la yidhaahdo xaqii dumarka hala raadciyo. waa ha loo noqdo un ilahay kitaabkiisii weeyaan. marka loo noqdo ilaahay kitaabkiisii wuu saxmaysaa oo muranba kama imanayo. waxaad markaa masalada tan moodaa inay tahay rag kale taariikhdood oo inaga dusha laynaga saarayo. taariikhda ku saabsiisan dumarka iyo sida loola dhaqmayo iyo waa taariikh gaaleed iyo xuquuqdoodan iyo waxaa. waayo masiixiyiinta ama waktiga kristanka ahaayeen ha ahaato ama before christ ha ahaato markay romanska ahaayeen iyo greeg iyo hunuudii hore iyo adyaantii caalamka jirtay, dhammaanteed dulmaa wada jiray. dulmigaasi wada jiray dhammaantiina yani dulmigu ilaa xad buu gaadhsiisanaa. maalan mu'tamaraadkooda qaarkood lagu baxtiyi jiray, maalan qarnigii shanaad mu'tamar maafcon lagu qabto oo kale, gabadhu ma jidh khaliya mise horta ruuxba waa ku jirta. waa mu'tamar dhan oo la isugu yimi in la ogaado gabadhu inay ruux leedahay iyo inaanay ruux lahayn. akhiiran waxay gebagabeeyeen oo yidhaahdeen ruux baa ku jirta, laakiin mid cadaab ka baxsanaysa maaha bay dhahay, tii ciise hooyadii mooyaane. yani inta kale dumarka oo dhan ruuxda ku jirta waa ahlu naar, ruux ahlu naara ayaa ku jirtay kusoo gebagabeeyeen. aaraada rijaalkoodaasi oo faransiisku maalan mu'tamar buu baxda caynkaasi u qabtay laleeyahay gabadhu ma insaan ba, ma bini aadan ba, mise insaan maaha. akhiiran waxay gebagabeeyeen waa insaan, laakiin inay ninkuunu shaqaysaa loogu talagalay. waxaad garan kartaa markaasi afkaartaasi say usoo socotay ama loo soo wadwaday ilaa xad. mu'tamaraadkooda qaarkood waa qabteen ruuxda ku jirta ama ruux bini aadan ba mise waa ruux xayawaan hadday ruuxiba ku jirto. waa mu'tamaraad dhan oo culamo isugu timi oo laga doodayo, falaasifa joogto oo warkani joogo. waxaynu odhan karnaa reer galbeed taariikh madoowo noocaasay lahaayeen ilaa xad. qaanuunkan ingiriisiku 1805 markay taariikhdu maraysay, waktigaa xataa qaanuunka ingiriisigu wuxuu ogolaa inuu ninku gabadhiisaba iibin karo. qaanuunka Great Britain wuxuu ogolaa inuu ninku gabadhiisaba
iibin karo weliba markaasuu qaanuunku xadiday qiimaha lagu iibinayo 6 beesood kama badan karta buu yidhi 6 beesood bay ahayd waxa lagu iibin jiray uu gabadhiisa ku gaday 1931kii 1931 baa nin ka mid nin Ingiriisi islaantiisii iibiyay xaaskiisii iibiyay dabeetana dood maxkamadeed baa ka dhacday akhiiran qaadigii wuxuu soo saaray qaanuunka 1805 in la joojiyay arrintan oo aan xaq u lahayn thawra al-faransiya markay dhacday waxaa bilaabmay aragtiyahan tirada badan leh xataa thawra al-faransiya la yiraahdo xuquuq bay raadcaynaysiyo warkaasi ay sheegaan waxa mansuus ku ahaa maalan ilmaha yar iyo qofka waalan iyo gabadhu inay qaasiriin yihiin oo aanay lahayn tasarrufaad gabigood baynaan loo ogolayn ilaa 1938 buu warkaasi soo socday waa markay soo saarayeen 1881kii ayuu The Married Women's Act Ingiriisku soo saarayeen rajaynaya waxaan u tilmaamayaa inaan sheego uun mujarrad taariikh aan teena ahayn in la rabo inta laynoo dhigo in la yidhaahdo dumarkii baa la xoraynayaa dabeetana innagana laynoo sameeyo ururo haweena ah oo dhammaantood waxay raadinayaan uu yahay in la xoreeyo haweenka عموما markaynu soo qabanno xataa falsafadoodii casriyada dambe مثلا Montesquieu maxaa la yiraahdaa Rousseau Voltaire Auguste Comte waxaas iyo dhami oo falsafadii qarnigii 18aad ee reer galbeedku waxay ahaayeen qoladii ka soo horjeeday xorriyadda dumarka iyo waxa la sheegay oo dhan culimada taariikhda ay ka waramaan waxay dhahaan thawra sinaaciya markay timi ama industrial revolutionkii ayaa bedelay noloshii mujtamaca oo baadiyiinta laga soo baxay magaalooyin la yimi oo warshadiye waxaan shaqaale u baahnaadeen shaqaale jaban baa bilaabmay shaqaalaha jaban waxa bilaabmay dumarkii in wax badan la siin waayo dumar iyo caruurta baa laga shaqaysiin jiray caruurtii qolaa u doodooday dumarkii xaqoodii baa la siin waayay akhiiran dumarkii waxay isku dayeen mudaharaad inay dhigaan kan inay sameeyaan xaqooda inay u doodaan xuquuqdoodii way wadeen maalinba mid bay dhacsanayeen maalin dhaweyd bay ahayd markii loo ogolaaday inay wax dooran karaan bal wadamada reer galbeed ee wali xuquuq bini'aadamkan ka shaqeynaa qaar baa 17kii loo ogolaaday gabadh inay food ku ridi kartaba Switzerland iyo 1971kii baa loo ogolaaday ba inay u footeyn karto ma ahayn la dooran karo inay wax dooran karto Francisca 1945kii dagaalkii labaad markuu ka baxay buu ogolaaday raggiisii intii badnayd madhe Ingiriisku 1928kii buu ogolaaday xaqa inay wax dooro waayo dumarku waxay dhahaan xaqeena dhacsan kari mayno ilaa inaynu yeelano mooyaane dadkan la dooranayo inaynu inana kuwii arrimaheena u doodayo si aan u dooranno xaqul intikhab baa la siiyey waa soo wadeen xaqu tarshiix baa markii dambe la siiyey waa soo wadeen inay madax noqon kartaa loo soo ogolaaday waa soo dagaalameen dagaalkoodii الحركة النسائية العالمية waxay gaarsiiyeen xad غير معقولة dunida qaybo badan oo kamida waxaan oran karnaa waliba qaybaha reer galbeeda wixiiba way la wareegeen ragii waa ka xog badiyeen wax badan bay la wareegeen mutamaradadoodii ugu dambeeyay ama aragtiyadooda ugu dambeeyay hadda waxay marayaan discrimination iskii bay dhaahdaan midab kala soocii dadka iyo xuquuqda dumarka ee la dacfinayo waxa ka hadhay kaliya bay dhaahdaan waa guurku bay yidhaahdeen waa sijin ama waa sex discrimination waa rape waa kufsi la joogteeyay bay yidhaahdeen gabadhan guriga lagu haysanaya xor ha u noqoto meeshay doontaa ka baxdo hadda waxay raadinayaan xaqa in nikaax la buriyo oo guurku inuu yahay weli man adis bay yidhaahdaan sida adis bay ku sheegaan weli inuu yahay dheeraadku raggu doondoonayay marka guurkana ha laga takhalluso de waa kuwan hadda wada qaanuun ilusraba in la bedelo maxaa family loo odhan karaa reer maxaa loo odhan karaa laba nin isfuula waa reer labada dumar isfuula waa reer ninkii iyo gabadha isogolaa waa reer waxaana sheegaysaana kala laga baxay bay leeyihiin wax nikaaxan la yidhaahdo iyo guurkan iyo familigan oo dhamme waa wax lagu lumayo idan iyaga meeshaasay kala dhacda su-aasha isweydiinta le waxa weyaan inaga maxaa laynoogu yeedhaya haddaba inta aanan ka warramin waxa laynoogu yeedhayo waxaan jeclahay mawduuca horta aad baan u necbay inaan ka hadlo maaha mawduucaan jeclay waayo waa usluub min asaaliibihim saan loo wada ayaa wuxuu yahay baa asal afkaartoodii nooc ka mid umayn taxliilinayna
laakiin intaanan odhan waxay noogu yeedhaysaan waa qaldan yihiin ama waa saxan yihiin ama waa caynkan wixii way midho dhaleene maxay dhaleen su-aashaasa isweydiin leh xaraka nisaa'iya alcaalamiya lawadiyo midhay dhashay midhahoodii muxuu yihi waxaan jeclaya inaan waxoogaa midhaha horta dhashay ka warramo maalan waxaa dhinacayga hadda yaalla buug uu qoray nin la yidhaahdo Patrick J. Buchanan ninkan la yidhaahdaa waa nin 3 madaxweyne oo Maraykana buu ahaa senior advisor la taliyahooda sare ayuu ahaan jiray 3 jeerna madaxweynenimada Maraykanka ayuu soo sharaxay 2 goor wuxuu iska soo sharaxay isagoo Republican nominateska ah marna Reform Party-ga mid ay yiraahdaan buu 2000 iska soo sharaxay xaga kale waa suxufi caan ah oo la yaqaano NBC News NBC-ga TV-ga la yiraahdo iyo CNN-ka TV-ga la yiraahdo programmada ugu caansan waa ninkii lahaan jiray mesela programkan Crossfire-ka la yiraahdo kale CNN-ku ilaa hadda soo daayay waa ninkii bilaabay ninkani buuggan uu qoray waa buug ka mid ah the best seller books buugta ugu fiican la iibsado sayagu sheegay buuggan ninka kan ma rabo inaan xayaysiiyo way ninkan waa niman aad u kala fognahay waa maxaa la yiraahdaa midigta xaq jirta waa kristanka fog deena tarafka kala malaanay waa niman kala dheernay laakiin dib bayna wada haysato oo ka warramaya dibtayna wada haysata buugiisa wuxuu u bixiyay the death of the west geerida reer galbeedka u bixiyay geerida reer galbeedka ninkani waa nin reer galbeed ah haddana wuxuu ka warramayaa reer galbeedku inay geeriyoonayaan مثلا عناوينta buugga kani uu ka warramayo waa عناوين aad u qariib ah مثلا ciwaanka koowaad waxa la yiraahdaa endangered species xayawaanada khatarta ku jira dabar go'aya waa ninka cad buu ka warramaya ninka cad weeyaan xayawaankan dabarka go'aya uu sheegaya ciwaankiisa labaad waxa la yiraahdaa مثلا where have all the children gone war carruurtii oo dhama xagee qabatay dunidu way carruur laaday buu leeyahay oo dhalmadii baa la waayay ninkani wuxuu ka warramayaa markaa waa nin cidiyaha ku dirirsan oo ka warramaya mujtamaciisii Maraykan ahaa inuu baaba'ayo iyo ninkii cadaaba inuu ka daba tago مثلا chapter-ka koowaad baan jeclay markaa inaan waxoogaa ka soo qaato maxaan u soo qaadanayaa feminism-kan la waday iyo dumarnimadan la waday waxaan loo doodayay waxaan rabaa midhahay dhashay in la arko waliba midhahay dhasho dhan ma ka warramayo hal jaanib oo qura ayaan rabaa inaan tilmaamno waxa uu tilmaamaya uu leeyahay ciwaankaasi markuu qoro European species are vanishing species wa London Times ciwaan ay qortay reer galbeedku waa xayawaanaat munqarida xayawaanaadka dabar go'aya wuxuu isagoo buuggan ka warramaya markaasi soo qaatay nin la yiraahdo Peter F. Drucker oo nin caan ah oo buug la yaqaan oo macruufa management challenge for the 21st century buug la yiraahdo qoray wuxuu ka soo qaatay word oo ninkaasi leeyahay the most important single news certainty if only because there is no precedent for it in all history is the collapsing birth rate in the developed world xaqiiqada qora buu leeyahay haddii aanay ahaynba taariikhdaba xaqiiqadii kaliya markan ina soo martay xaqiiqada kaliya yani aan ku muran lahayn waxa weeyaan buu yiri dhashan sii maranaysa ee dunida horu martay waxaynu naqaanaa ummadii markastoo dhasheedu uu soo badanayso in xadaaradeedii iyo dadnimadeedii iyo mujtamacan uu hor u sii marayo markastoo buu yiri ummad dhasheedu ay sii yaraato sii gabagabowdana waxaynu garan karnaa buu leeyahay inay xadaarad iyo ummad sii baaba'aysa tahay waxaan oran karaa buu yiri waxaan la mid yahay Cheshire Cat-ka waa bisad ay dunida maanta leeyihiin waa bisadka sii dabar go'aya hal la ilaaliyo ayuu la mid yahay buu leeyahay ninkii cadaama reer galbeedka ah wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo waxyaabo inay leeyihiin weedhaha kani waa weedho qariib ah maxaa looga jeedaa cilmigan ijtimaaciga sociology iyo waxaan marka laga warramayo adilada ugu kuuskuusan la isticmaalo ugu adag waa xisaayaadka
يعني waxaan ihsaayaadka la tira koobada la yiraahdo waa adilada ugu adag ee yiraahdaan dhanna laga ma dhaafo مثلا ninkan wuxuu leeyahay 1960kii marka la isku daro buu yiri ninka cad ee ku noolaa Yurub iyo Ameerika iyo Australia iyo Canada marka la isku wada daro ninka cad degana waxa haabulay waa 60kii 750 milyan dunida dadka ku nool oo dhamina waxay ahayn bulay 3 bilyan taa macnaheedu waxa weeyaan waqtiga ninka cadi wuxuu dhigmaya quarter ama 4 meelood oo meel ahaan ayuu ninka cadi waxa dadka dunida ku nool baa haabulay 40 sanadood kadib haddaan tirada eegna bulay waa 2000 taariikhdu markay mareysay dadkii dunida ku noolaa wuu laban laabma wuxuu noqday maxay 6 bilyan halku 3 bilyan ka ahaa 6 milyan ama 6 bilyan ayuu noqday ninka cadi isagu uu istaagay buu leeyahay halkii uu sigistigii joogay muu soo dhaafin buu leeyahay sadaraadeed wuxuu leeyahay 47 ka wadan ee Yurub ay ka kooban tahay hal wadan oo kaliya ayaa jira oo laga bilaabo 2000 ilaa waqti indefinite aan noolaan karo oo sii jiri kara inta kale way dabar go'aysaa buu leeyahay bal way dhawfirs 47 wadan ee Yurub ka kooban tahay buu leeyahay hal wadan baa jira buu leeyahay macaalasif buu leeyahay kaasina waa muslim buu ka noqday waa Albania qura ayaa dhali karta si ay u sii noolaato waxaan oran karaa buu yiri Europe has begun to die Europe waxay bilowday buu leeyahay inay dhimato 2050 markay taariikhda la gaadhay buu leeyahay yani hadda 2003 baynu maraynaa 47 sano kale hadii lagu sii daro qarnigan aynu ku jirno bartamihiisa hadii la gaadho population-ka dunida 3 bilyan oo kala ku biiriya buu leeyahay waxa noqon karaa hadii growth rate-ku saan uu maanta yahay uu socdo ilaa 9 bilyan 9 bilyan buu leeyahay boqolkiiba 50 ka mid waxay ka iman doonaan Asia, Afrika iyo Latin America ninkii cadaaya Yurub buu isaga leeyahay 100 milyan buu hoos u dhacaya hadda ma haysaga waxba ku biiraya isaga wax dama dhali maayo dhashay waa dhamaata waxa ninkan cad ku socda buu leeyahay halka dunida 3 bilyan oo dad ku soo biiri doonaan isaga waxa ka sii go'i doona uu sii yaraan doona wuxuu noqonayaa maxay 100 milyan oo qof oo ninka cadaba sii tirtirmaya buu yiri taa macnaheedu waxa weeyaan buu yiri 1960kii ninka cad afartii qof ee dunida kor marayaba mid baa cadaan ahaa 2000 marka hadda la jooga buu leeyahay 6 qof ee dunida dul marayaba mid baa cadaan ah 2050 marka la gaadhana 10kii qofba hal mid ah ayaa cadaana buu leeyahay tirakoobkan buu leeyahay maaha tirakoob anigu aan iska sameeyay waxaan ka soo qaatay buu leeyahay United Nations World Population Prospects ka ay soo saarto waliba revision-kii dambe ee 2000kii la revise gareeyay iyo revision-ka wixii lagu sii daray 28 February 2001 ayaa ka soo qaatay buu leeyahay dib ugu noqday mar labaad wuxuu leeyahay Iceland laga soo bilaabo buu yiri ilaa Russia laga tago 2000 markay taariikhdu ahayd ninka cadad degana waa 728 milyan haddii la eega buu leeyahay sida ay imika wax u dhalaan haday wax u dhalaan oo nolosha ay sida u socoto 2050ka 600 milyan bay dadkani noqon doonaan yani 128 in ku dhadow ayaa la waayay study kale wuxuu sheegayaa buu leeyahay inay noqonayaan 560 oo xataa 600 inay hoos marayaan taariikhda Yurub marka dib loo baadho buu leeyahay taariikhda Yurub oo dhan hadii dib loo baadho mar ay Yurub yaraatay oo sidan oo kale ay yaraatay buu leeyahay waa waqtiga dhaci jiray wixii la oran jiray black waxa weeyaan 1347 ilaa 250 ayaa daacuna ka dhaceen Yurub waxa la yiraahdaa dadkii Yurub deganaan jiray ba 1/3 baa la waayay $3 dalool baa dhintay nasiib darro buu leeyahay kani kaana uu ka fool xun yahay Yurub $3 ku dhintay waaye buu yiri kaasi inta badan wuxuu leeyahay kuwa waaweyn iyo kuwa yar yar iyo mid walba xanuunku deema kala aqoon buu leeyahay qof yar iyo qof weyn qof walba uu dilay laakiin iminka xaqan laga wadaa buu yiri waa yar yar kun baan la dhalayno xagga yar yar baa ka dhamanaysa marka xataa kaasa dhaamay buu leeyahay sida ay sheegaya
waa Jacqueline Casum waa nin professor ah oo economic professor buug uu qoro leeyahay The War Against Population dagaalka lagula jiro bini aadamka wuxuu leeyahay 20 wadan ee dunida ugu dhashay yar leh 20ka wadan ee dunida ugu dhashay yar leh 18 baa Yurub buu leeyahay labada kalena kama sii foga waa Japan iyo wax la nooca reer kasta oo European ama gabadh kasta oo Europe buu leeyahay fertilitygeeda average fertilitygeeda hadaynu eegno wax dhalkeedu waa 1.4 macnihiisu waxa weeyaan laba qof oo kasta oo isqaba waxay hayd inay dhalaan maxay haddii la rabo inaan dadku korin ee uu intiisu iska jooganay labadoodii labadii bedeli lahaa dhalaande iyagu markay daawabaan dhintaan ama gaboobaan shaqayn kari waayaan labadii booskooda buuxin lahaa inay dhalaan laakiin saani maaha waa 1.4 way ka yartay haddii la rabo buu leeyahay in mujtamac Ben Wattenberg odagii Jarmalka la oran jiray haddii la rabo buu leeyahay mujtamac inuu koritaankiisu sax noqdo uu jiro wayna average fertility rate kaasi uu noqdo 2.1 minimum ugu yaraan waynu inta noqdo yaani labadii boqol qof waynay dhalaan 210 qof haddii la rabo mujtamacaasi inuu si caadi ah u jiro waxaan ka warramayaa buu yiri waa zero population growth ma aha buu yiri waxaan ka warramayaa yaani population kan korayn maaha ee waa zero population baan ka warramayaa buu leeyahay si kala hadaynu sheegna waxay sheegayaan waxa weeyaan xoolasha la sameeyo iyo kafanta la tolo Yurub kafanta badan yaani sanduuqan yar ee meydka lagu rido iyo xoolkan yar ee ilmo marka dhashay lagu rido labada marka la sidinac dhiga bay leeyeen waxa badan kafanta badan macnaheedu marka waa maxay dadku si yaraanaya weeyaan si maranaya haddii buu leeyahay Yurub sidan ay maanta wax u dhasho ahaato waqti aan sii fogeyn oo qarnigan dabayaaqadiisa Yurub tiradeedu waxay noqon doontaa buu leeyahay 207 milyan taa macnaheedu waxa weeyaan buu yiri intay maanta tahay waxay hoos mari doontaa 30% yani tirada ay maanta tahay waxay ka sii yaraan doontaa 30% halka markuu marayay buu su'aal isweydiiyay ilaan European-kii oo dhan waa kan mariyay ee uu leeyahay wax waliba way sii yaraanayaan oo hoos bay u sii socdaan su'aal buu isweydiiyay uu leeyahay why is this happening war waxani maxay inoogu dhacayaan maxaa dadkani u yaraanaya dabeetana cilooyin buu keenayaa koow wuxuu leeyahay fikradan socialistka ee mujtamacu qaatay ee buu leeyahay allada wal marax inay noloshuba tahay in la tunto la farfarxa oo generationadan dambe laga dhaadhiciyay buu yidhi noloshuba inay nooca u eg tahay iyo isagu ra'yiyada uu radinayo waxa ka mid ahaa uu leeyahay state pension kan dawladdu lacagtan ay bixiso buu leeyahay carruurtan iyo waxaan oo dhan in lacag la siinayo waayeelku markuu gaboobo in lacag la siinayo saadaradeed waayeelku aan u baahanayn carruurtii hadhow markuu weynaado uu dayaga pensionka ka qaadan lahaa uu soo waday haweenkan buu leeyahay dabada loo soo saaray lacagta badan helay tumashada rag iyo dumarba la iska tulmaanayo aan mas'uuliyadda wadan buu leeyahay aan waxba ka ratibmaynin raggan iyo dumarkan dhamaantood xorriyadda la siiyay wana reer galbeed ninka sidaan u hadlaya uu soo wada wuxuu ku tilmaamaya uu leeyahay arrinku hadduu sidan ku sii socdo buu leeyahay waxa family-ga la yiraahdaa reeraha waxa la yiraahdaa way qarsoomi doonaan ama way baabi'i doonaan and when they are gone Europe goes with them buu yidhi family-yadu markay tirtirmaan ee family-ba la waayana Europe-na la waa buu leeyahay family hadduu baabao Europe-na baabaaday buu yidhi oo raacdo xagga kale ninkani colaad buu haystaaye wuxuu leeyahay dunida saddexaad markaan eegna buu yidhi 15 bilood ee kastaba 100 milyan oo qof oo cusub ay dhalaan buu yidhi sanadii 3 bilood 15 bilood ee kastaba dunida saddexaad waxa ku soo kora buu leeyahay 100 milyan taa macnaheedu waxa weeyaan buu leeyahay
2050 uu sheegayay marka la gaadho 40 wadan oo Mexico leeg baa dunida ku soo kordhaya 40 wadan oo Mexico leeg ayaa dunida ku soo kordhaya Europe halkay dunida saddexaad ka soo kordhinaysa buu leeyahay 40 wadan oo wadan waliba Mexico leeg yani 100 milyan yahay halkay dunida kale soo kordhinayso Europe dhankeedana waxa la waayi doonaa buu leeyahay dad u dhigma dadka degan Belgium iyo Holland iyo Denmark iyo Sweden iyo Norway iyo Germany oo la isku daro konta sanadood bay intaas ku dhamaanaysaa buu leeyahay yani Europe tiradeedii marka la eego dadka meesha ka bixi doona intaas ay noqon doonaa wuxuu kale isweydiiyay hadana su'aal ah waxan ma la joojin karaa su'aashiisii hore uu ka jawaabo wuxuu yidhi waxan maxay u dhacayaan uu isku dayay inuu ka jawaabo su'aal ah buu isweydiiyay oo ah war waxan ma laynaga joojin karaa wuxuu yidhi inta lala yahay ilaahay oo arrintan soo farageliya absent divine intervention inta lala yahay buu leeyahay يعني حق ربو laga soo farageliyo nolosha ama lala yahay buu leeyahay haweenayda reer galbeed oo aan wali aqbalayn oo ku qancaynin inay abuurto family size u dhigma kii hooyadeed ama si ayeedeed samaynaysay future-ka dunida saddexaad baa iskala buu leeyahay laba goor oo quraanu badbaadaynaa buu ninkani leeyahay ilaahay dee hadduu khaariqa keena buu leeyahay oo dadka kaleba dee alla mariyo kale oon iska soo hadhno waa suurtagal marka kale aanu badbaadaynaa waxay tahay buu leeyahay Western women to begin having the same size families as their grandmothers in la helo buu leeyahay haweenayda reer galbeed oo lagu qanciyo inay dhashay intay ayeedeed dhali jirtay hooyadeed ma ayeedeed buu qabadsiiyay ayeedeed intay dhali jirtay inay dhashay buu leeyahay intan maanta Europe degan haddii labada midba la waayo buu leeyahay taa macnaheedu waxay noqon doontaa in future-ka dunida dhammi uu gali doono gacanta dunida saddexaad buu ku tilmaamaya markaynu isku soo celcelino wuxuu leeyahay 2050 Afrika waxay noqon doontaa 1.5 billion Morocco ilaa Persia Iran iyo Morocco inta ka dhaxlana carabta iyo Turkiga iyo Islamic Sea bay noqon doontaa buu leeyahay nus milyan dad uu degan yahay 500 milyan oo dad ay degan nus bilyan yani South Asia buu leeyahay 700 milyan oo qof baa deganaan doona Iran iyo Afghanistan iyo Pakistan iyo Bangladesh India waxay noqon doontaa buu leeyahay 1.5 bilyan Indonesia oo dal muslimiin 300 milyan buu noqon doonaa intuu soo waday buu wuxuu yidhi Russia iyadu shrinkage way ururi doontaa buu yidhi halka imka 147 ama 150 milyan imka laga sheego 114 milyan bay yana dib u noqon doontaa buu leeyahay Europe buu yidhi si ay markaa u jirto oo wax soo saarkay maanta leedahay si ay u soo saari karto waxay u baahan tahay buu leeyahay inay qaadato 169 milyan oo qaxoontiya 169 milyan oo qaxoontiya ama waxa uu tilmaamayaa waxa soo dhan u wadwada 169 kaasi qaxoontigu ay ka keeni doonto buu leeyahay Afrika iyo Middle East kaasi waa hal way oo nolosha ay u sii jiri karta buu leeyahay another way buu leeyahay طريق kale ma la helayo nimanka qaxoontiga in ugu soo yaacayo lagu celiyo oo Europe ay u sii jirto wuxuu yidhi طريقة labaadna waxa weeyaan inay Europe taxiska ama cashuura ay qaado kor qaado pensionka la bixiyo hoos loo dhigo caafimaadka bilaashka la joojiyo ama hoos loo dhigo dabeetana Europe ay noqoto buu leeyahay dal ka mid ah dunida saddexaad yani laba shay unba Europe ku jiri kartaa inay waxan barwaaqaymka sheeganaysa intay ka takhalusto cashuurtana kor u qaado waxyaabihii benefitska dadka la siin jirayna la wada joojiyo oo ay markaa noqoto wadan yar oo dunida saddexaad ka mid ah buu leeyahay continent ka mid ah dunida saddexaad ama se inay qaadato 169 milyan oo ay Afrika iyo Middle East ka qaadato buu leeyahay hadii kale gabadha reer Yurub waa in lagu qanciyaa sidii ayeedeed u dhali jirtay inay u dhasho French demographer Alfred Sauvin in la yiraahdo Francis
ayaa wuxuu yidhi yurub sidan ay iminka tahay hadday usoo socoto buu yidhi waxay noqon doontaa buu yidhi a continent of old people in old houses with old ideas buu yidhi yurubtan la sheegaya waxay noqon doontaa buu yidhi qaarad dad gebgaboobay wada degan yihin oo guryo gebgaboobay ku wada jira oo caqli gaboobayna xambaarsan buu yidhi sidan aynu iminka u fakerayna haddaynu nolosha u wadna buu yidhi yurub waxay noqon doontaa waddan ama qaarad dad gebgaboobay degan yihin oo guryo gebgaboobay ku jira oo caqli gaboobayna xambaarsan su-aal kaluu soo celiyey ninkiiyo wuxuu leeyahy wargeeridan yurub ma la joojin karaa ninkani tolkiibuu u calaacalayaa geeridan yurub ama baaba'an yurub is the death of the west inevitable wuxuu isugu jawaabay haddana inta aanay suurtagal ahayn haddaynu inoo suurtowda buu yidhi caqliga gabadha reer yurubka ah in aynu ka dhaadhicinno oo aanay isdhiibine ay u fahamto wanaaggu inuu yahay yacni wanaaggu inuu yahay inay u fahamto buu leeyahy ilmo la dhalo oo la kobciyo haddaynu taa awoodi karna buu leeyahy waa joojin karnaa haddii kale buu leeyahy waxba kama joojin karayno yani ninkani wuxuu leeyahay haddaynu gabadhaynu nidhi ha la xoreeyo dabadda ha loo saaro ha shaqo tagto suuqa ha qabato ninka ha la beratanto ha iska rawdo lacag ha hesho guurka ha diido wax walba haddaynu taa dib ugu qancin karna buu yidhi inay gurigeeda joogto oo carruur dhasho oo kobciso oo dabeetana u soo saarto buu yidhi and sending them out into the world to continue the family and nation markaas un baynu joojin karnaa buu leeyahy the death of the west ninka reer galbeed ama reer galbeedka geeridiisa markaas un baan joojin karnaa u sii waday ninkani warkiisiiyo wuxuu leeyahay war haddaad taa diidaan buu yidhi reer galbeedow oo rag iyo dumarkiinii fikraddaa laydinku qancin kari waayo markaa waxaa oggolaataan buu yidhi inaynu qorro jabtarkii ugu dambeeyey ee taariikhdeennii iyo ilbaxnimadeenna ka warramayay innagu on our will buu leeyahy yacni doonisteennana aynu ku saxeexno inaynu geeriyoonno yacni aqbala buu leeyay inaynu idhaahno bes haddaba taa waynu diidnay soo maaha last chapter of our history aan qorra buu leeyahy oo ah yurub waxay aqbashay inay dhimato dabeetana aan wada saxeexana buu leeyahy iyana muran kale ma jirayo either of the two buu leeyahy inaad last chapterkaa saxeexdaan iyo inaad gabadhan saan ku qancisaan su-aashaan idin weydiinaya markaa waxay tahay haddii tii la xoreeyey cirka la qabadsiiyey ee lacagta heshay ee jaamiciyadda noqotay ee madaxweynaha noqotay ee ra-iisul wasaaraha noqotay ee caynka noqotay natiijaday dhashay ay kan tahay oo kii xoreeyey uu ooyayo innaga maxaa laynaga rabaa soo nala dhintuun ma hadde ma wax kala jiraa yani isagii wuxuu leeya waa baaba'aynaa waa madhanaynaa waxaanu ku qaylinayaa uu leeyahay ama last chapterkii historygeennaba aan maanta saxeexno amase aan gabadheenna qancinna inay guriga joogto oo wax dhasho labada aan kala dooranna buu isagu leeyahy inana hay-ad baa laynoo soo diray iyo urura inoo yimi waxayna leeyihiin soo saara haweenka ha la ilbixiyo ha socdaane waxa uu isweydiinayaa su-aal kaloo ah war carruurtii xaggay qabatay buu isweydiinayaa yani maxaa diiday in carruur la dhalo sababta keentay carruurta in la waayaa maxay tahy deetana wuxuu ka warramayaa taariikhdoodii dhaqaalaha isbedelay buu leeyay berigii hore buu yidhi agriculture buu dhaqaalu ahaa beeralaydu buu leeyahy waa goobtii shaqada iyo gurigiibaa isku meelah odag iyo islaantu way iska wada shaqaysan jireen dee laakiin labaduba gurigooday joogeen waanay dhalayeen industrial revolutionkii markuu yimi buu yidhi waxay noqotay shaqadii inuu ninkii meel kale ugu baxo dabeetana markay noloshii ku fillaan weydo gabadhiina ay ka daba baxdo labadiiba ay dabadda usoo shaqo tagaan bost industrialkuna wuxuu keenay buu leeyayba in labaduba ay kala maarmaan oo midba lacag gaara intuu iska helo la iska kala tago intuu waday ninka kane ayuu wuxuu leeyahay duruufta nololeedee dambe gabadha waxay ku qasabtay buu leeyahay inay kala doorato kaariyarkeeda yacni shaqadeedii iyo farxaddii hooyanimadu lahayd oo mar ah
hadda maaha dhowr inay dhasho mar qura inay mid dhasho labadaasaabay doorasho ugu jirtaa buu yidhi inay wax kale samayso daaye yani gabadhu buu leeyahay si ay ninka ula baratami karto maxaa looga baahan yahay ilan waa meeshii concurrence baa la galayo loolan waxaa looga baahan yahay horta wuxuu dhigto inay dhigato jaamacaddu ka baxo inay ka baxdo taasi waxay kalifaysaa buu leeyahay inay dhowr iyo 20 jir horta marka hore gaadho intaan ay jaamacadkan iyo waxaan sii wado shaqo fiican oo joogta ah say u heshaana waxay kalifaysaa 10 sano dambana inay baabkaasi ku jirto markay dhowr iyo 30 jir ama 40 sii cagacageynayso ayay haday wax xasuusato guur xasuusan kartaa buu leeyahay markaana haday ka maarmi weydo si ay maruun hooyo u noqoto faraxda xabad ha dhashay buu leeyahay noloshii waxay ku kaliftay buu leeyahay qaab dhaqaaleedkii noocan ka noqdo 1950 buu yidhi haweenka reer galbeed buu leeyahay boqolkiiba 8 haweenka haysta caruur 6 jir ka yari gurigay joogi jireen caruur 6 jir ka yar haweenka haysta boqolkiiba 8 gurigay joogi jireen buu yidhi maanta buu leeyahay boqolkiiba 4 haweenka haysta caruur 6 jir ka yari goobta shaqaday joogaan buu leeyahay yani awal boqolkiiba 8 baa haweenka caruur 6 jir ka yar haysta guriga fadhiyeen haddana buu leeyahay boqolkiiba 4 ayaa haweenka haysta maxay caruur 6 jir ka yari ay ku qasban yihiin inay joogaan maxay labor force inay kamid ahaadaan ama qaybta shaqada inay joogaan uu sii wado wuxuu yidhi gabadh baa uu ka soo naqlinaya wuxuu leeyahay Eleanor Millis waraysi ay qaaday waxay leedahay hablaha aniga ila midii bay leedahay ee caafimaad qaba ee qalbigoodu fayowye ee tabaqada dhexe mujtamaca ku jira ee 20 jirkoodii ku jira yani dhowr iyo 20 jira wax ma dhalaan gabadhan waxay leedahay hablaha aniga ila mida ee caafimaad qaba ee dhowr iyo 20 jirka ah ee dhaqaalaha isku filani wax ma dhalaan markaas ay isweydiinaysaa why not maxay wax u dhali waaye waxay tidhi markaa sababtan wax u dhali weynay waxa weeyaan my generation is to win preoccupation isa waxay tidhi da'dayda labada mataanaha loo baahan yahay in la ilaaliyo da'dayda nasiib darre waxa weeyaan bay leedahay sida loo ekaanayo iyo lacagta ku soo galaysa mataanahan u baahnay inaan helaa waa labadana carruurta maaha bay leedahay makeup iyo inaan iska dhaldhalaaliyo iyo inaan lacag helo wuxuu leeyahay sababaha keenay weli warkii ninkan baan idin wadaa sababaha keenay waxaa ka mida buu yidhi markii la arkay dhibtu inay sii badanayso ayaa Mareykanka wax la soo bandhigay buu yidhi wax la yidhaahdo family wage waa ragga mushaharkooda ha la kordhiyo oo lacag fiican ha helaan dabeetana ha awoodi karo ninku in carruurtiisa iyo haweentiisaba ay gurigiisa joogi karaan oo isagu wada biilin karo maanta ninka Yurub jooga ma biilin karo dee carruurta iyo islaanta ma wada biilin karo hadduu doonayo inuu si farxad leh u noolaado say sheegaan haddii kale waa inay labadooduba wada shaqo tagaan si taa looga maarmo bay yidhaahdeen family wage ha la sameeyo laakiin buu yidhi shuuciyiintii baana soo gashay Marcus iyo Frederick Angeles iyo baleeya baaskoodii dabeetana waa kii Frederick Angeles buu yidhi buuggiisii The Origin of the Family ku qoray buu yidhi conditionka ugu horeeyaba shartiga ugu horeeyo xornimada dumarku waa inuu ka bilaabmaa buu yidhi inay guriga ka baxdo oo warshada qabato ayuu ka bilaabay buu yidhi wixii ugu horeeyay ee xornimada dumarka ku saabsisnaa family wage waxa la qaaday buu leeyahay Carlson in la yiraahdo ayaa wuxuu leeyahay 2000 baa waxa la qaaday opinion poll waa maxaa la yiraahdaa ra'yi العامka su'aalaha dadka la weydiiyo dadka Mareykan baa waxa la weydiiyay buu leeyahay oo rag iyo dumar bale ma xaq mutaabuhu in la siiyo dhaqaale ku filan si haweentiisa iyo carruurtiisu ay guriga u joogaan oo shaqada ay uga maarmaan dhammaantood dadkii boqolkiiba 85 iyo in ka badan waxay isku waafaqeen buu yidhi inay fiican tahay in ragga mushaharka loo kordhiyo si dumarku ay guriga u fadhiyaan oo carruurta u hayaan lacagta dumarku ay shaqeeyaanna mar walba supplementary bay hayde waxba may qaban jirin bay leeyihiin wax tar badan may lahayn marka inay guriga fadhido boqolkiiba 85 baa dadka isku raacay buu yidhi rag iyo dumarba laakiin buu yidhi feminist group ururadii haweenku iyagu waxayna yidhaahdeen buu yidhi sex discrimination baa jira gender discrimination rag iyo dumarka kala socdeen
halkii la rabay buu yidhi in la yidhaahdo mushaharka ragga ha loo kordhiyo si carruurta iyo dumarku ay u nastaan ayay iyaguna waxay yidhaahdeen buu yidhi xuquuqdii dumarkaa meel kaga dhacaysa waxa loo baahan yahay buu yidhi EEOC-ga waxay ku tilmaamayeen. EEOC-ga waxay yidhaahdaan Equal Employment Opportunity Commission bay yidhaahdaan EEOC. maya bay yidhaahdeen waxaan aad wadaan weli waxa weeyaan bay dumarkii yidhaahdeen men wanted artski weeyaan raggii weli waxa loo kordhiya soo wadaan bay yidhaahdeen maya dumarka shaqada ragga la mid ah la siiyo iyana ha baxdo. dabeetana buu leeyahay actigii ama xeerkii rightska ay ku sheegayeen 1964kii maraykanku ugu ogolaanayay dadka madmadoobay xaq la mida dadka cadcad inay yeeshaan haweenkiina waxay soo dhex raaciyeen buu yidhi in rag iyo dumarka xaqa shaqada laga simo ay xagga u socoto halkii la rabay buu leeyahay in la yidhaahdo war ragga mushaharka ha loo kordhiyo si carruurta iyo dumarka loo wadi karo. iminka buu yidhi nolosha waxay ku qasbantay labada dhalinyaro ee xataa guursataa buu yidhi way ku qasban yihiin inay suuqa usoo wada baxaan. labada dhalinyaro ee guursataa way ku qasban yihiin buu leeyahay labaduba inay suuqa u baxaan. ixsaa'iyaadkooda waxaa ka mid ah 1970kii buu yidhi dumarka da'doodu 20 jir ilaa 24 jir u dhaxeeya ee aan guursani 36 quray ahaan jireen. iyaga 36 yani wax yar bay gaalada agtooda la tahay boqolkiiba 36 dumar ah da'da u dhaxaysa 20 jir ilaa 24 jir ayaan 1970kii guur haysan buu yidhi. 1995kiina buu yidhi dumarka lagu qoray buu yidhi never married haweenka aan weligood guursani boqolkiiba 68 bay marayeen buu leeyahay. boqolkiiba 68 ayaa waxay ku qorayeen maxay never married. marka la eego buu yidhi haweenka da'doodu tay 25 jir ilaa 29 jir never married iska waxa ku qoraa buu yidhi 10 bay ka soo kordheen ilaa boqolkiiba 35. waxay noqotay buu yidhi nolosha reer galbeed hadda inay noqoto ninka wax haysto qurunba intuu guursado carruur dhali kara oo ay guriga joogi karaan inta kale waxay ku qasbayeen inay dabadu baxaan. feminist groupki ayaa ah buu leeyahay waxyaabaha nabaabiyey. ninkan warkiisa waxaan u soo qaadanayay inaan hawl badan oo kaloo aan sheegi lahaa kaga yaraysto oo ah maxaa laynoogu yeedhayaa soo maaha inaynu qoladaa ku dayanno gabadha xorowday gabadha shaqaysatay gabadha jaamiciyadda noqotay gabadha dhakhtarada noqotay ta brofesorada noqotay waxa la sheegaya laynoogu yeedhayaa un soo maaha siday gabadha reer yurub noqotay iyo xuquuqda heshay inay hesho. haddii markii xuquuqdaa la helo natiijada ka dambaysa ay kan tahay ma meel laysugu yeedhaaba yani natiijadii waa tan iyagaana qiraya maaha natiijo wadaad sheegay waxaan ku idhi waa mutatarif christianka midigta foga ayuu ka mid yahay waa kooxdan iminka meesha xukunta ayuu la koox yahay. haddii caynkaa uu yahay duqii maraykan uu sidaa u warramayo natiijadii ka soo baxday wixii la sheegayana waa caynkan yahay iyo ummadaba in inqiraad ku dhacayo miyay tahay meel aynu maanta bilowno inagu mise waxay ahayd inaynu dhahno alxamdulilah ilaahayna dhaafiyey baa ma hadda iska lahaa ee kooxdaasi noo keeni. waxaan leenahay inay masaladu noocan tahay waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid ah familigu gurigu waa mu'asasada ugu khatarsan ee mujtamacuba uu leeyahay. bulshada ummaddu mu'asasada ugu khatarta badan leh ee hadday dunto aanay ummadaasi jirin hadday dhisan tahayna ummadaasi jiri kartaa waa guriga waa familiska waa reeraha waa in aabbiyo hooyo iyo carruur ay dhalan ay jiraan oo ay tarbiyaynayaan. arrinka maqluubka ahi wuxuu yahay bini aadam wuxuu soo saara maxaa u fiican iskuma daro. yani haddaan noqdo injineer dayaxa wax u dira mid dhulka quusa waxaasoo dhan waa aqoomaha bini aadamku keenay laakiin waxaasoo dhan waa material bay dhahaan. bini aadam wuxuu soo saara bay dhahdeenoo product ah bini aadam baa ugu qaalisano wax la soo saaro product ah ummadda hantideeda waxa ugu qaalisani waa dhasheeda. yani horumarka bini aadamku wuxuu ka bilaabmaa bay dhahaan waa 3 shay sida loo falgeliyo waa dhulka ay dadku leeyihiin khayraadka iyo nimcada iyo waxa alla ku siiyey in laga faa'iideysto waqtiga ay dadku haystaan inaan la dayicin laga faa'iideysto iyo dadkiisa in laga faa'iideysto
saddexdaa haddii sidii ugu habboonayd looga faa'iideeyo xadaarada la sheegayo civilization iyo horumarku waa intaa saddexda waxa ugu khatarsan bay leeyihin bini aadamka waayo haddaad isaga losgaraysa bay leeyihin inta kaleba waad losgaraynaysaa hantidii dhulkana waa lumaysaa iyo khayraadka iyo nimcadii iyo wixii ku jiray waktiguna waa lumaya idan su-aasha aynu isweydiinayna u baahan marka hore in laga jawaabaa waxay tahay mujtamaca waxa ugu fiican ee lasoo saara waa maxay waxa la raa caqliga bini aadamku waa sida wax lagu tusiyo waxay rabaan inay nagu dabarogaan oo ay ku yidhaahdaan gurigu waa xabsi ma madbaxa iyo guriga iyo kajada iyo musqushiya intaasay salaadku ka dhexe maxay ka qabanaysaa haye halka fiicani waa xaggee waa xamaalista iyo dekada iyo halkaa in la jooga miya yani meesha fiican ee la ammaanaya waa xaggee ma combyuutarka in la dul fadhiyaaba goormu combyuutar guri ka fiicnaaday say macquul u tahay productionka la soo saara maxaa ugu fiican inaad gawaadhi samayso iyo inaad bini aadam tarbiyayso soo saarta iyo ma roob maanta hargeysa inaad 100 gaadhi ku soo dayso iyo 100 wiil oo wax tara ama 100 gabdhood oo wax tara inaad soo dayso iyo ma roob yani waxa roon oo aan muran ku taagnayn insaanka idan meesha ummadu ka jabta waa qofka bini aadamka ma aha materialka bini aadamka sameeya horumarka bini aadamka sameeya haddaad bini aadamka weydo wax walba weyday haddaad se isaga hesho fursadii waad leedahay jaariskii waad leedahay wax ku heli lahayd in markaa gabadha loo sawiro shaqada ah in ilmo la dhalo oo la koriyo oo caqiido la baro oo bini aadam dhaba laga soo saaro oo aakhiriya adduunba wax anfacaya noqdo shaqadaasi iyo in la isdhinac dhigo warshad in laga xamaalaa waa caqli foorara aad u foorara laakiin waxa la rabaa in adiga ka lagu qurxiyo lagu yiraahdo gurigoon bay joogtaa madbaxa iyo kitchada iyo inta may dhex marmaraysa waa sijni waa xabsi halka fiicani waa halkee waa inay geerashka iyo joogto warshada iyo xafiiska madaxtooyada iyo meelaha inay warwareegto ayaa halka fiican iyo jaamacadda oo inanka dhinac fadhido is that the correct position waxaan leenahay caqiidada inuu insaanku yahay waxa ugu fiican la soo saaro guriguna uu yahay meesha ugu wanaagsan soo saarta markii la ogaaday mesela mubashirku waa missionary waa masiixi diin faafinaya waa daaci diin kristana faafinaya ay caalamul islaami markay gumaysanayeen qabsanayeen bay shireen 1913kii bay lakano ku qabteen shir mubashiriintii gaalada isugu yimi waxa laga warramayaa markaa caalamul islaami sidii loo dumin lahaa ama loo qabsan kari lahaa ama loo baabayn lahaa asaaliibtii la raaci lahaa bay ka wadeen 1 2 3 4 5 6 7 markuu marayay buu wuxuu qoray si looga yani mujtamaca loo dumiyo looga guulaysto bay yiraahdeen al-irtiqaa al-ijtimaa'i wan-nafsi bayna an-nisaa'i al-muslimaat bay yiraahdeen muhibbadiin al-khatiib tarjamadu al-ghara 'ala al-'aalam al-islaami kitaabku tarjumay ku qoray waxay yiraahdeen waa in la kobciyaa ijtimaaci ahaan iyo nafsiyan bayn loo kobciyaa haweenka muslimka ah hadda waa gaal raba inuu ku gumaysto wuxuu ku leeyahay waayo wuxuu og yahay haweenayda muslimka ee gurigeeda joogta xataa haddaanay waxna qorin waxna akhrinin inay ilmaheeda caqiido fiican ku tarbiyeynayso inay diinta ay rumaysnayd u gudbinayso xataa ilmuhu hadduu marka dambe yaro fasaado shahwaatu nafsi ay qaado iimaankii lagu canqariyey caqligiisa kama maranayo wuu soo noqon karaa laakiin haddii hooyada afka faranjiga la baro oo combyuutarka ay si fiican u barato oo ay khabiiro jaamacad ka soo baxday noqoto asaanay wadanin asaaliibtaynu ka rabnay ilmahay soo saartaa laguma guuraan kalunbuu noqonaya xataa hadday wax dhasho dee way nasiib wanaagsantahay horta hadday wax dhasho laakiin hadday dhashana mid aan lagu guurayn buu inta badan noqonaya ma lihi anigu gabadha muslimadii iyo wax baranin ma lihi gabadha muslimadii jaamacadii ka bixin ma lihi laakiin waxa aan tilmaamayaa qaabkan laynoo wado ee ah the same curriculum in rag iyo dumarka isku wax qura loo dhigo waayo gabadha la rabaa in la nineeyo waayo laba qof oo kala professional laba shaqo kala noocay qabtaan rag iyo dumarku isku shaqo maaha maadaama ilaahay ugu talagalay laba shaqo kala nooc inay qabtaan biologically iyo physiologically bay ilaahay wuxuu abuuray laba qaab oo kala gedisan walidaalika waa Alexis Carrel wuxuu lahaa unug kasta oo haweenayda ku jira buu yiri wuxuu sheegayaa haweennimo unug kasta oo nin ku jiraana wuxuu sheegayaa ninnimo mid walba meeshii ilaahay ugu talagalay inuu ka shaqeeyo ayaa la siiyay awoodeediina ma aha rag iyo dumarku wax la isdhinac ciriyo la dhaaka fiican mid waliba halkiisu ku fiican mid walba hadii halkiisa laga kaxeeyana wuu doqomoobaya
gabadhu gabadhnimo cid kulama baratami karto gabadhnimo ku fiican ninkuna ninnimu ku fiican yahay haddii la isweydaariyana labaduba way doqomoobayaan walidalik ilmaha lagu koriyo bay yidhaahdaan xadaanada yani waxay tilmaamaan ilmaha intuu laba jirka yarya bay yidhahdeen hooyo u gaar u baahan yahay uma baahna bay yidhahdeen xataa hooyada in lala wadaago walidalik waa aragtaan ilmaha yare carruurtaada ka ugu yari dhabta hooyadii markuu ku fadhiya haddii mid kale dhinaca kaga soo fadhiisto wuu xanaaqaya wuu ku hooyaya wuu gujinaya yani ma aqbalaya bay leeyihin xataa in lala wadaago hooyo keliya neersariga bay yidhaahdeen 20ka carruura hooyadu ka dhaxaysa hooyo la'aan weeyaan waxba kama jiraan marka tiraamaya islaantii odayguba intay shaqo tagaan ha la geeyo xadaanada carruurta oo iyadaba dee dumar baa jooga hablaa jooge dabeetana 20 carruura inta la dhigo in 2 islaamood la yidhaahdo sii ilaaliya waa hooyo la'yay waayo hooyo isaga u gaaru rabay muu rabin mid dadba la leeyahay haddii la rabo bay leenahay in ilmo saxa la soo saaro wuxuu u baahan yahay qaabkii loo soo saari kari lahaa sidaa ogeed waxaan leenahay waxaan laynoo wado waxa weeyaan in mu'asasada ugu khatarsan aynu leenahay in la dumiyo waxa jirta hooyada muslimadda ee gurigeeda joogta afkaarta reer galbeed inta badan gaadhi mayso haddaan bahalkan cusub imika la isku ibtileeyay guriga la geynin laakiin marka la soo saaro de waa loo warramaya meeshan loo soo saarayo o dhan waxaa loogu soo wadaa uun in loo dhiibo afkaar ka gedisan waxay rumaysnayd waxaan leenahay gabadhii la soo saaray maxay faa'iide maanta reer galbeedku ixsaayaadkii qorayaan waxay leeyihiin hadday hooyo noqotona bay yidhahdeen double work baa ku dhacay bay yidhahdeen hooyada reer galbeed bay yidhaahdeen dhib bay qabtaa may xoroobine 2 shaqaa ku dhacday bay yidhahdeen subaxiina way shaqo tagtaa hadhow marka la soo rawaxay iyada iyo ninkuba guriga yimaadaan iyo ciyaalkaba la soo kaxeeyo xadaanada laga soo qaadana shaqadii gurigu may dib u bilowdaa 5.5 hours dheeraad uma shaqaysaa bay yidhaahdeen miyaa la xoreeyay markaa subaxiina ninkii way la shaqo tagtay markii la soo wada rawaxayna iyadun baa shaqadii gurigu sugaysaa carruurta kale seexi kan cunno sii kan halkan geeg guriga nadiifso intan samee waxba ninku halkan u baadana jiifsadaa dhaqaale soo heshay hawshii un baa lagu kordhiyey wax kaloo u kordhay bay yidhahdeen waa double work bay yidhahdeen xorriyadday sheegayaan waa inay islaamtu 2 goor un shaqayso marna inay xafiiska tagto oo nin kale secretary usoo ahaato marka ay ka soo noqotona odaygeedii inay secretary labaad u noqoto waa 2 goor bay secretary tahay inana waxaan lahaynaa mar qura secretary iska noqo oo intaad 2 secretary noqon lahayd adoo mid qura secretary noqdaaba dhaama idan waxay leeyihiin ixsaayaadka maanta la haya waxay sheegayaan weli haweenaydu way dulmantay bay yidhaahdeen mar hadday guur u dhaqaaqo walidaalika bay kuwii dumarka u doodayay waxay leeyihiin guurkana hala baabi'iyo kuwii dumarka u doodayay iyagu waxay leeyihiin maxay guurkana dee waa nooc ilan dulmigii ka mid eh isagana maadaama saan loo xisaabinayo isaguna meesha ka baxo gabadhii markii la soo saaray bay leeyihiin yurub dhibta soo gaadhay waxaa ka mid ah kasratu talaaq furitaankii baa batay nin iyo gabadh labaduba xoogsi tageen feerkuma iska badiyaan markay guriga isugu yimaadaan midna ka kale uma baahna labaduba waa soo daaleen aduu markaad shaqada ka soo baxdo adoo madaxa iyo caqliguba ku daalan yaad guriga imanaysaa hadday islaamtuna kula midtoo dhan kale ka soo daashay idinkoo xayraansan unbaa guriga isugu imanaysaa idan waxa batay furistii baa badatay waayo waa 2 qof oo labadaba suuqa kusoo dawaqeen awal carruurteedii iyo inteeda iskala joogto cidna kama cadhaysa hooyana carruurteeda kamaba cadhooto maanta dhan hadday madaxa ka korayaan iyo hadday bijaa ka korayaan waa iska dhex fadhida laakiin marka labadiinuba intaa suuqa gasheen labadiinuba mar kii managerka ka cadhaysiiya marka ilaa iyadana xagunba managerka ka cadhaysiinaya ku haystaa oo la isku hayo labadiinuba idinkoo murxiqa oo daalan marka guriga soo gashaan ma macquul in midkiina soo dhaweyn laga helayo idan waxay yidhahdeen taasina waxay kala abuurtay kasrat talaaq inuu guryaha dumistooda ay badato guryaha sanad kasta la xisaabay leeyahay 60% baa duma idan waxba ma kordhinayana waxa la leeyahay waxa kala batay junuux al-atfal maanta Yurub bay leeyihiin carruurtii faralaga qaad bay noqdeen hada Afrika kama warramay dib jirkeena yar yar meelaha dib jirkeena waa masaakiin waxba ma sameeyaan marka loo eego kuwa xagoo jooga oo waliba aan ahayn kuwa baahiyo u geynayso kan waxa laga yaabaa inta yar uu sameeyo in baahiyo u geyso kuwa baahiyo u geysayna maaha laakiin wuxuu rabaa filimka wuxuu ku arkay inuu practically u furiyo tu darbiga isku nabo intuu dadka oo dhan baas mariyo booliskana inuu jaro waliba buu doonayaa oo action dhab amuujiyo oo ko filimka arkaya child delinquency bay yiraahdaan junuux al-atfal qaanuunkuna ma qabto therefore waxay ku kaliftay maanta inay sameeyaan maxay
juvenileska yani muraahiqiinta in loo sameeyo xabsiyo dhan